madaxweynaha maamulka Khaatumo State of Somalia Dr. Ali Khalif Galayr ayaa maanta booqasho ku tagay magaalada Laascaanood kadib muddo 20 sano ku dhawaada waxaana madaxweynuhu safarkiisa ka soo bilaabay dhinaca Buuhoodle oo toddobaadadan oo dhanna waxa uu ku marayay gobolada Sool, Sanaag iyo Cayn waxaana la sheegayaa tan inay ka dambeysay heshiiskii uu la galay Somaliland ee lagu soo afjarayay khilaafkii muddada dheer ragaadiyay goboladaasi oo uu la saxeexday heshiis in laga wada mid ahaado Somaliland dawladii hore ee Axmed Maxamed Maxamuud Siilaanyo waxaana iminka la leeyahay booqashadiisani waxay cadho gelinaysaa maamulka Puntland oo in badan aad uga soo horjeeday inuu deegaanadaasi ka hana qaado maamul kale oo saddexeeya waxaana la sheegayaa inaanu weli fulin heshiiskaasi lana sugayo toddobaadada soo socda inuu heshiiskaasi fulo ama bilaha soo socda baan idhaahdee walow uu professorku dhowr jeer sheegay inuu heshiiskii weli fuli la yahay oo ka fuli la yahay xagga dawladda Muuse shir ballaaran ayaa ka furmay maanta magaalada Dhuusamareeb ee xarunta gobolka Galguduud ahna caasimadda dawlad goboleedka Galmudug waxaana shirkaasi uu daaran yahay dhamaystirka heshiiskii Jabuuti ay ku soo wada galeen labadii garab oo kala qaybsanaa maamulka Galmudug ee Ximan iyo aan idhaahdee Galmudug iyo Ahlu Sunna wal Jameeca waxaana heshiiska dhamaystirkiisa maanta ka goob joogayaalka ah madaxweynaha dawladda federaalka Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo qayb ka tirsan golaha wasiirada iyo waliba ergeyga qaramada midoobay oo qaabilsan Soomaaliya Mr. Keating waxaana la sheegayaa in heshiiskani uu maanta dhacayo iyadoo ay maqan yihiin maamul goboleedkii Ximan iyo Xeebo uu ka biyadiiday heshiiska lala galay Ahlu Sunna wal Jameeca sababtana waxa ay ku eedeeyeen kadib markii uu heshiiskii hore ay Ahlu Sunna wax ka saxeexday uu socon waayay kana socon waayay dhinaca Ahlu Sunna heshiiska hore lagu aasaasay Galmudugna waxa saxeexay 3 maamul waxaana si toos ah bariga uga baxay Ahlu Sunna wal Jameeca walow iminka heshiiskan dambena ay ka baxeen Ximan iyo Xeebtan ayaa noqon doonta caqabad kale oo meesha ka dhalatay waayo marka caqabad la xaliyaba mid kale ayaa furmaysa u eeg tahay kamana uu hadal madaxweynaha federaalku sida uu arrimahan isu waafajin doono ama uu isugu xiri doono caqabadan cusub ee la soo kooshatay durba maamulkii cusba ee la islahaa waa loo midaysan yahay